Salaamullaahi calaykum magacaygu waa Cabdixakiim Dirir ku soo dhawow janalkeena Big Dirir News fadlan subscribe saar haddii aad ku cusub tahay janalkeena laagna dheh marka waxaan leenahay dhammaan asxaabta bulshooyinka Soomaaliyeed ku soo dhawaada barnaamijkeena falanqaynta siyaasadda Geeska Afrika. Sida ogsoontihiin waxaa haysto dalalka Masar iyo Ethiopia, sidoo kale dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Masar iyo Ethiopia waxay isku haystaan biyo xireenka ay Ethiopia ka sameynayso wabiga Niilka Buluuga. Ethiopia sida ogsoonnahay waxaa kasoo bilaawda wabiga Niilka Buluugta. Barnaamijkeena intaan guda jirno ayaad ogaa doontaa Niilka wuxuu yahay halka uu ka yimaado ma hal Niil ba mise waa laba Niil. Sida wada ogsoonnahay ishaynta ay ishayaan labada dal Ethiopia iyo Kenya. Arrintaasi waxay maalmahan aad u falanqeynaya Soomaalida, xataa ay kusoo biireen siyaasiyiintii Soomaalida inay arrintaas falanqeeyaan ayagoo la safanaya Kenya oo ku mucaaraday dowladda Soomaaliya oo qaadatay hannaan dhexdhexaad ah labada dal. Sida wada ogsoontihiin Kenya sida ogsoontihiin Ethiopia iyo Masar waa is haystaan, marka Kenya iyo Soomaaliya waa is haystaan. Ogsoonta afartaas dal laba ayay isku haystaan. Marka Ethiopia iyo Masar arrinta Kenya iyo Soomaaliya ee badda hal dhexdhexaad ay ka qaateen. Marka dowladda Soomaaliya haddana halka si xumaanaya ee u dhexeeya dalalka ugu awoodda badan Afrika Ethiopia iyo Masar. Marka siyaasiyiinta mucaaradka shacabka Soomaaliyeed waxay leeyihiin Masar aan taageerno, Masar aan safano, Masar san ayalno. Marka su'aasha isweydiinta wada maxaa waaye Masar ma taageertay Soomaaliya markii ay is haysteen Kenya. Saad u jeediin Niilka waa laba Niil, waa White Nile iyo Blue Nile. White Nile wuxuu kasoo bilaawdaa harada Victoria ee u dhaxaysa dalka Tanzania iyo Uganda, qayb yar oo harada ay ka leedahay Kenya. Waxay ku kulmaan magaalada Khartoum, magaalada u dhisan qaabka saddexagalka. Niilka Ethiopia ayuu kasoo bilaawdaa, marka Ethiopia Niilka kasoo bilaawdo ilaa Khartoum uu ku egyahay. Marka wuxuu ku darsoomaa Niilka weyn ee cad. Marka halkaas ay ku kulmaan Khartoum. Marka Ethiopia waxay doonaysaa inay ka faa'iideysato biyahaas iyo kheyraadkaas Ilaahay siiyay ee ka dhaliso koronto raqiis ah oo dalkeeda balad iyo baadiye koronto gaarto. Dalalka oo deriska ahna ay korontada ka iibsato sida Uganda ee harada Victoria koronto ka dhaliso kale ugu iibiso dalalka Rwanda, Burundi iyo Kenya. Marka Soomaaliya xataa waa kasoo gaaraysaa korontadaas oo koronto ay Soomaaliya ka helaysaa. Saas kale Sudan sidoo kale, Djibouti sidoo kale, Eritrea sidoo kale, Sudan sidoo kale koronto ay ka helayaan dalalka deriska ah. Marka sida u jeedin sawirkan ee muuqdo waa halka ay isku haystaan Kenya iyo Soomaaliya. Kenya waxay doonaysaa in ay badda Soomaaliya ku qaadato ay qaloociso halka uu maro xariiqinta. Halka Soomaaliya ay rabto sida caalamiga ah oo adduunka laga ogsoon yahay oo loo calaamadeeyo. Marka Ethiopia iyo Kenya Ethiopia iyo Masar marnaba arrinta Soomaaliya ma soo faragelin oo Kenya kuma dhihin waa qaldan tahay qaladkaada qaado. Arrimahaas dhexdhexaad ay ka noqdeen. Marka anaga haddii aan nahay Soomaali waxaan u qasbaya in aan qolo la safano. Sida ogsoonta Ethiopia waxay naga haystaa dal, Kenya sidoo kale. Masar anaga waxba nagama galin. Masar hadii waxa caawinayso waxay caawin lahayd Falastiin oo deris la ah meena go'doomiyeen. Marka dalalka dunida saasoo kale ay dal walba dantiisa u filnaa. Marka ummadda Soomaaliyeed maxaa la gudboon? Ma inuu danahooda fiirsadaana mise in ay la saftaan Masar? Fadlan nagu soo qor commentiga.